بسم الله الرحمن الرحيم. معلنك هو محمد عبد القادر عثمان. مادة تكنولوجي ayaan qaadanaynaa su'aalihii jawaabo fasalka lixaad kama gaarayno inaan u aqrino sida cashir oo kale dadka baraha bulshada igu taxan maxaa yeelay iskuulka jaanis badan ma heli waxa kale waan ka shaqeeyaa marka dad badan ayaa iga codsaday inaan technology marka whatsapp ugu diro dadka kalena whatsappka marmar qaarkood waa iska mashquul badanahay marka halkan ayaan idiin soo gelinayaa insha Allah waana habeen waxaan duubayo saasanaada technology fasalka lixaad ayaan qaadanaynaa su'aalihii jawaabo marka waa iska badan yihiin su'aalaha ka imaan karo fasalka lixaad waa tiro badan yihiin aad bay u badan yihiin waxaan isku dayaynaa sida ugu dhaqsaha badan marka inaan ku duubno si boobsiis ah idinkana dulqaad deganaan muujiyo su'aalo iyo jawaabo muxuu u baahan yahay qof kasta su'aasha lagu weydiiyo hadday technology fasalka lixaad su'aasha koowaad laga weydiin karo waxaa waaye muxuu u baahan yahay qof kasta muxuu u baahan yahay jawaabtu waxaad leedahay nabad iyo amni qof walba u baahan yahay nabad iyo amni waa baahida uu qof kasta u baahan yahay inuu helo nabad iyo amni saarta ugu jawaab marka muxuu u baahan yahay qof kasta nabad iyo amni waa kusoo gaabsan kartaa waxaa kala dhahi kartaa waa baahida uu qof kasta u qabo inuu helo nabad iyo amni waa baahida nabad iyo amni waa baahida uu qof kasta u baahan yahay halkaas ayaa jawaabta ay ku eg tahay su'aasha xigta waxay leedahay muxuu Allah ka baryay Nabi Ibrahim calayhi salaam muxuu ka baryay Nabi Ibrahim waa garanaysaa soo ma muxuu Allah ka baryay Nabi Ibrahim calayhi salaam in magaalada Maka uu ka dhigo Allah wuxuu ka baryay jawaabta waa kana in magaalada Maka uu ka dhigo balad aamiin ah magaalo nabadgelyo ka jirto magaalo dhibaato iyo rabshad kale aan ka jirin su'aasha saddexaad waxay leedahay waa maxay nabaddu maxay tahay jawaabtu waxaad leedahay markaad jawaabaysid jawaabta aad ka bixinaysid waxaa waaye nabaddu waa xasilooni 1 isjecel 2 isfahan 3 wada noolaansho 4 iyo in laga nabad galo carabkaada iyo gacantaada intaa marka la helo ayaa waxaa la helayaa nabaddu waa xasilooni isjecel isfahan wada noolaansho iyo in laga nabad galo carabkaada iyo gacantaada intaa haddii la helo nabad waa la haystaa yaa nabad u baahnayn marka rabin waa la garanaya nabad marka la sheegay dada marka qaarkood kasoo jeesanaya aaba rabin nabad qof kasta oo aan rabin xasilooni isjecel iyo wada noolaansho qofkaas ayaa ah qofka diidan nabad in la helo qof kasta oo aan rabin xasilooni isjecel iyo wada noolaansho qofkaas ayaa ah qofka diidan in nabad la helo yaa nabad u baahnayn jawaabteeda waa kaa yaa nabad u baahnayn ama rabin qof kasta oo aan rabin xasilooni isjecel iyo wada noolaansho su'aasha kale ee xigta ee shanaad waxay leedahay maxaa loogu talagalay kaamirooyinka ilaalada jawaabta aad ka bixinayso waxay noqonaysaa waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo guryaha goobaha bulshada ku kulanto ama iskugu timaado waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo guryaha goobaha bulshada ku kulanto jidadka
meelo badan ayaa loogu talagalay, laakiin waxaa loogu talagalay kaamirooyinka ilaalada. Waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo guryaha dowladda, guryaasha xaafadaha, wixii lamid ah, guryaasha muhiimka ah. Sidoo kale goobaha bulshada ay ku kulanto, sida meelaha ciyaaraha kala duwan laga daawado. Haddii shaleemooyin ay jiraan, waagi hore shaleemaha iska jiri jirtay la daawan jiray. Hadda laakiin booska shaleemada waxaa bedelay telephone. qof walba mobilkiisu kala socdaa wax kasta. Waxaa loogu talagalay kaamirooyinka ilaalada, waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo guryaha, goobaha bulshada ku kulanto iyo wixii lamid ah. Su-aasha kale, waa maxay ujeedooyinka kaamirada? Ujeedooyinka loogu talagalay kaamirada maxaa waaye? Waa maxay ujeedooyinka kaamirada? Ama sheeg shaqada kaamirada ilaalada. Sheeg shaqada ay qabato kaamirada ilaalada. Sheeg shaqada ay qabato kaamirada ilaalada. Sheeg shaqada kaamirada ilaalada. Jawaabtu waxaa leedahay qodobadan soo socdo. Qodobka koowaad wuxuu leeyahay in lala socdo dhaqdhaqaaqa tuugada iyo burcadda. Waa laba qolo markaa doonayso in ay wax dhacaan, iyo qolo doonayso in wixii dhan markaa qolada dhacayso wax yar bay qaadanayaan, xoogaa lacag iyo muhiim ay qaadanayaan, laakiin qolada kale waxaa waaye total way raranayaan, wax ay dhaafayaan male. In lala socdo dhaqdhaqaaqa tuugada iyo burcadda oo isku dayaya in ay dhacaan bangiyada, xawaaladaha, goobaha waaweyn ee ganacsiga ah. Qodobka koowaad waxaa waaye maxay tahay ujeedooyinka loogu talagalay kaamirada ilaalada, sooma? In lala socdo dhaqdhaqaaqa tuugada iyo burcadda oo isku dayaya in ay dhacaan bangiyada, xawaaladaha, goobaha waaweyn ee ganacsiga. Qodobka labaad waxay noqonaysaa in loola socdo dhacdooyinka ka dhaca waddooyinka, sida shilalka gawaarida ama baabuurta, khilaafka ee waddada dhexdeeda ka dhaco, sida laba qof in isku fiirto iyo wixii lamid ah, ama laba qof isku maan dhaafto. Sidoo kale nidaamka waddooyinka, sababtoo ah baabuurta seedad bay leeyihiin, mid walba seediisa ama meesha loogu talagalay inuu maro hadduu uu nidaam darro suubiyo uu mari waayo, waxaa dhacaysa markaa waxaa qabanaysa kaamirada ilaalada, kadibna waa lala xisaabtamaya. Qolooyinka taraafikada ayaa loo yeeraa. In lala socdo dhacdooyinka ka dhaca waddooyinka, sida shilalka laba baabuur oo isku dhacdo oo kale, sida shilalka gawaarida, khilaafka, nidaamka waddooyinka loo maro, wixii lamid ah. Qodobka ugu dambeeya ee kaamirada ilaalada loogu talagalay in loola socdo guud ahaan nabadgelyada iyo badqabka shacabka. In loola socdo guud ahaan nabadgelyada iyo badqabka shacabka. Su-aasha toddobaad waxay leedahay halkee lagu dhejiyaa kaamirada ilaalada? Halkee lagu dhejiyaa kaamirada ilaalada? Halkee taala kaamirada ilaalada? Kaamirada ilaalada waxaa lagu dhejiyaa bannaanka hore ee dhismayaasha, waddooyinka, xafiisyada dhexdooda, bangiyada, goobaha ciyaaraha iyo garoomada diyaaradaha. Geyga diyaaradaha ama garoonka diyaaradda ay ka kacdo ama kusoo degto ayaa lagu xiraa geyga diyaaradaha ama diyaaradaha. Qodobka kale ee lambar 8 waxay leedahay muxuu sheegaa qalabka wax lagu baaro? Dadka waa la baaraa maqalnay, qalab baa lagu baaraa. Qalabka lagu baaro muxuu sheegayaa horta? Qalabka waxa uu sheegayaa sida furaha, saacadaha, katiinada qofku wato, faraantiga iyo wixii lamid ah. Muxuu sheegaa qalabka wax lagu baaro? Kow, wuxuu sheegayaa qalabku waxa uu sheegayaa sida qofka inuu wato furo hadduu wato wuu sheegayaa, dhiig wuu qaylinayaa. Saacad ama saacadaha kala duwan dadka ay wataan hadduu wato wuu sheegayaa. Katiinada
iyo dhegdhegaha iyo faraantiga wixii lamid ah dhammaan wuu sheegayaa qalabkaas. Su-aasha sagaalaad waxay leedahay sidee lagu garanayaa in qalabka uu wax sheegayo? Sidee ku ogaan kartaa qalabkan inuu furo sheegayo in wax kale uu sheegayo maxaa ku garan kartaa? Sidee lagu garanayaa in qalabka uu wax sheegayo? Jawaabta waxaa leedahay waxa uu bixinayaa jabaq ama cod sheegaya in walax bir ah uu wato ama ay ku jirto dharka qofka sida jeebkiisa ama jeebka qofka. Waxa uu bixinayaa jabaq. Haddaad jabaq aad garanaynin cod ayuu bixinayaa shanqadh sheegaya in walax bir ah uu wato ama ay ku jirto dharka qofka sida jeebabka mid ka mid ah jeebashiisa macnaha haddii wax ku jira uu sheegaya. Su-aasha tobnaad maadada technology fasalka lixaad waxay leedahay sidee lagu gudbiyaa qof aan wax dhib ah wadanin? Qof wax dhib aan wadanin sidee lagu gudbiyaa? Jawaabta waxaa leedahay qofku mala gudbiyo ilaa laga hubiyo inuusan wax dhib ah wadanin. Qofkas iskama moodi karo meeshas, ilaalaa jirto. Waa lagu baarayaa marka la ogaado in aad waxba wadanin nadiif aad tahay ayaa lagu gudbinayaa. Qofku mala gudbiyo ilaa laga hubiyo inuusan wax dhib ah wadanin. Sidee lagu gudbiyaa qofka aan wax dhib ah wadanin? Qofku mala gudbiyo ilaa laga hubiyo inuusan wax dhib ah wadanin. Waayahay. Su-aasha 11aad ee lagu weydiin karo waxaa waaye in la isbaaro oo macnaha shaqadan la qabto arrintaas iyo waxtar u tahay marka. In baaritaan iyo macnaha qof shaqo loogu dhigo oo arrintaa la qabto arrintaas iyo waxtar u tahay. Arrintaas waxa ay waxtar weyn u tahay dhammaanteen. Kulligeen waa anfacaysaa badqabkeena ilaalada. Su'aala meesha ku jirta gadaalan kasoo gelin doona waa tirtirmatay. Su-aasha 13aad su-aasha 12aad way maqan tahay. Su-aasha 13aad ayaan gudbinaa. Su-aasha 13aad waxay leedahay sidee loo ilaaliyaa nabadgelyada garoomadaha diyaaradaha? Geyiga diyaaradaha ay kusoo degaan ama meesha garoonka diyaaradaha ay ka kacaan ama kusoo degaan meesha diyaaradaha ay fadhiistaan ama ay ka kacaan sidee loo ilaaliyaa? Sidee loo ilaaliyaa nabadgelyada garoomada diyaaradaha? Waxaa la adeegsadaa aalado kala duwan. Jawaabta waxaa leedahay waxaa la adeegsadaa aalado kala duwan oo lagu baarayo boorsooyinka, xamuulka waa waxa uu wado gaariga xamuul ah waxaan dad ahayn laakiin wax kale uu wado ayaa xamuul loo yaqaanaa. Alaabta ay wataan rakaabka dad qaarkood waxay wataan alaab iyo rakaabka naftiisa iyo dadka saaran ama raacayo diyaaradda. Rakaab ayaa lagu magacaabaa rakaabka naftiisa. Okay. Sidee loo ilaaliyaa nabadgelyada garoomadaha diyaaradaha ama geyiga diyaaradaha? Waxaa la adeegsadaa jawaabta waxaa leedahay waxaa la adeegsadaa aalado kala duwan oo lagu baarayo boorsooyinka, xamuulka, alaabta ay wataan rakaabka iyo rakaabka naftiisa. Eelboorka Aadan Cadde magaalada Kismaayo waxaan rabaa magaalada Xamar waxaa ogtihiin in amnigiisa aad loo baaro soo degitaanka iyo macnaha kicitaanka. Magaalada Kismaayo sidoo kale iyadana waa aragtaan eelboorka magaalada Kismaayo aad baa loo baaraasana waa la xakameeyey meesha halka uu jooga hadda waa laga soo turjiyey meel kale ayaa la keenay. Marka hore afka hore laga galayay ayaa wax lagu baari jiray laakiin hadda dhowr mitir ayaa dib loo soo degay si marka amniga loo ilaaliyo. Halkee ayuu yaalaa qalabkaas? Qalabka wax lagu baaro halkee ayuu yaalaa? Jawaabta waxaad leedahay qalabkaas waxa ay yaalaan meesha laga galo garoomadaha diyaaradaha iyo wixii lamid ah. Albaabka laga galayo markaad safarka tahay albaabka laga galayo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waxaad arkaysaa ama garoomada kale Soomaaliya ku yaalo
in albaabka laga galayo ay yaalan wax qalabka lagu baaro. Shaqaalaha nutarkooda waxay leeyihiin fingerprinter meel ay saaranayaan ama card bay leeyihiin. qalabkaas waxa ay yaalaan meesha laga galo garoomadaha diyaaradaha iyo wixii la mid ah. Su-aasha 15aad waa maxay xog lagu weydiin karo su'aalaha ugu muhiimsan ugu culus waa maxay xog? Xogtu waa macluumaad cayriin ah oo aan la kala shaandhayn. Xogtu waa macluumaad cayriin ah oo aan la kala shaandhayn. Hadii la weydiiyo xog waa maxay? xogtu waxaa waaye akhbaaraad lasoo aruurinayo, warbixino lasoo aruurinayo. Warbixinta marka ma shaandhaysno, taas ayaa xog la yiraahdaa. qaabka lasoo aruuriyo sida loo keeno waa xog. Haddii xogta wax laga bedelo, la hagaajiyo, process la mariyo ama nidaam, waxaa loo yaqaanaa macluumaad. Marka isku bedeleysa xogtu maxay noqoni kartaa? Waa su'aal. waa maxay xog lagu dhahay? Xogtu waa macluumaad cayriin ah oo aan la kala shaandhayn. Haddii qof aan xog garanayn ka war soo u fahansiin lahayd, xogtu maxay noqon kartaa? Xogay maxaa tahay? Xogtu waxay noqon kartaa qoraal badan oo soo qoro. Sidoo kale xogtu waxay noqon kartaa sawiro in la keeno. Waxay noqon kartaa xogta tiro. Sidoo kale dhawaaq ama cod ayay yeelan kartaa. Tartan waa xog. Waa maxay macluumaad marka? Ereyga xog waxaa kasoo horjeedo macluumaad. Macluumaad ma waa maxay marka? Macluumaad waa xog la kala shaandheeyay. Macluumaad waa in xog la helo. Xogtaa markii la kala hagaajiyo, la nadaamiyo, wixii cod gooni loo maro, wixii sawiraan gooni loo dhigo, wixii lambara wax markii la kala nadaamiyo, shay walba booskiisa saxda ah markii la geeyo ayaa wuxuu noqonayaa macluumaad. Macluumaad waa xog la kala shaandheeyay oo loo bedelay macluumaad macno gaar ah sameynaya. Macluumaad macno gaar ah sameynaya. Xogtii ayaa waxaa loo bedelayaa macluumaad macno gaar ah sameynaya. taas ayaa loo yaqaanaa macluumaad. Qofka hadduu xog isiyo ku dhaho iyo haddii wax macluumaad uu dhaho way kala duwan yihiin. Tusaale, qofka xogta doonayo wuxuu ku dhahay fasalka 6aad imisa arday ayaa dhigato? Waxaa dhahday 80 qof, 80 arday. Wuxuu qaatay xog, laakiin macluumaad muusan qaadan. Laakiin haddii aad dhahdo ninka uu ku dhaho tusaalahan macluumaad isii, fasalka 6aad macluumaad iga bixi, macluumaad isii. Waxaa leedahay fasalka 6aad waxaa dhigato 80 arday. 80ka arday 50 waa wiilal, 30 waa gabdho. da'doodu waxay u dhaxaysaa 12 ilaa 17 ay u dhaxaysaa da'doodu. waxay u dhaxaysaa 12 ilaa 17 jir meelahaas ayay u dhaxaysaa. Marka intaa aad bixisid waa macluumaad. Macluumaad waa xog la kala shaandheeyay oo loo bedelay macluumaad macno gaar ah sameynaya. waxaa lagu weydiin karaa qor ama sheeg farqiga u dhexeeya xog iyo macluumaad. Sheeg ama qor farqiga u dhexeeya xog iyo macluumaad. waxaa leedahay xogtu waa cayriin. xogtu waa cayriin wax la soo aruuriyay hadda. Tusaale ahaan waxay la mid tahay adigoo raashin karsan rabo, raashinkii cayriinka ah waa inaad soo gadataa marka hore aad keentaa. Keenitaanka meel walba oo shay soo gad isku keensatid waxaa loo yaqaan xog. Markaa karsatidna waxay noqonaysaa macluumaad. wixii danta aad lahayd waa keen. Xogtu waa cayriin, macluumaadkuna waa xog la shaandheeyay ama la habeeyey. Waa la shaandheeyay ama waa la habeeyey. Marka xogtu waa cayriin, macluumaadkana wax la shaandheeyay oo la habeeyey waa. Qodobka labaad macnaha qodobkaas waa dhihi kartaa. Qodobka kale oo dhihi kartid waxaa waaye xogtu waa tirooyin ama sawiro. Xogtu waa tirooyin ama sawiro. Tiro 5, 6, 50, 100 waa tiro. Tiro waxay tahay waa iska naqaanaa, laakiin macno ma xambaarsana. Waa iska xog. Laakiin haddii macno loo yeelo tirada aad dhahday 50 wiil, 50 iskuul, 50 macnaha sida oo kale
konton buug, konton qalin. Waxaa haddaad dhahdid macnaha waxay yeelanaysaa macno. Macnahaasna waxaa waaye macluumaad. Xogtu waa tirooyin ama sawiro. Macluumaadkuna waxa ay macno u yeeshaa tirooyinka ama sawirada. Macluumaadkana waxa ay macno u yeeshaa tirooyinka ama sawirada. Wixii xogtu la soo ururiyay ayaa macno laga soo binayaa marka. Waayahay. Xogtu waxa ay ku dhisan tahay ururinta xogta. Xog waxay ku dhisan tahay oo lagu heli karaa in la soo ururiyo xogta horta. Arrinka la doonayo horta in la soo ururiyo waa. Xogtu waxa ay ku dhisan tahay ururinta xogta. Macluumaadkuna cilmi baaris. Xog waxay ku dhisan tahay in la soo ururiyo, la isku keeno wixii la rabay. Macluumaadkuna waxa waa cilmi baaris in loo kurgalo waxaa la soo ururiyay in la baaro la shaandheeyo. Macluumaadku waxa uu ku xiran yahay xogta. Macluumaad markaa rabtid inaad heshid waa inaad xog heshaa. Xogta markii la keeno ayaad macluumaad kala bixi kartaa. Macluumaadku waxa uu ku xiran yahay xogta. Balse xogta kuma xirno macluumaad. Xogta macluumaad ma ku xiran tahay? Maya. Xogta maalin walba waa la helaa. Macluumaadku wuxuu u baahan yahay cilmi baaris. Xaqiijin u baahan yahay. Su'aasha 19aad maxaa uu noqday muhiim kombiyuutarka nolosha? Maxaa uu u noqday muhiim kombiyuutarka nolosha? Maxaa uu u noqday muhiim kombiyuutarka nolosha? Waa arkaynaa maalin kasto waxaan isticmaalaa nolosheena kombiyuutar. Kan hadda casharkan kaaga duubay waa kombiyuutar. Haddii loo baahdo tusaalayaal aan kaa siiyo, tusaale ahaan gabadha isbitaal ku dhalayso, loo baahdo ilmaha caloosha ku jiro intay dhaleen ka hor waxaa la saari karaa kombiyuutar lagu ogaan karo cunuga noloshiisa iyo wixii la mid ah. Sidoo kale caafimaadka kombiyuutaradaas ayaa loo isticmaalayaa. Haddaad rabtid isgaarsiin, waxaa isticmaalaynaa shirkadaha ugu badan Soomaaliya. Xawaaladaha kulli waxay isticmaalayaan kombiyuutar. Xafiisyada dowladda ay leedahay ama xafiisyada rayidka dhammaan waxay isticmaalaan kombiyuutar. Diyaaradaha arkaysan maanta waxaa lagu hogaaminaa lagu wadaa waa kombiyuutar. Maraakiibta waaweyn sidoo kale dhammaan intaa la mid ah waxay isticmaalaan kombiyuutar. Kombiyuutarka marka shaqooyinka uu qabto aad bay u ballaaran yihiin. Maxaa uu noqday muhiim kombiyuutarka nolosha? Jawaabta aad ka bixinaysid waxaa leedahay kombiyuutarka waxa uu qayb muhiim ah ka noqday dhammaan nolosha sida waxbarashada. Arday kastoo maanta jaamacad dhiganaya ama wax baranaya wuxuu wataa laptop ama kombiyuutar ayuu wataa. Ganacsi ordaha hadda aragtid macnaha ganacsi u socdo waxaa arkaysaa in kombiyuutar wato. Isgaarsiinta dadka isgaarsiinta macnaha shirkadaha isgaarsiinta Hormuud, Telecom wixii la mid ah waxay isticmaalayaan markaa kombiyuutaro. Saadaasha hawada dadka hawada saadaaliya beri waxaa soo dhici doona saan waaye hawada cimilada isbedelaysa kan waaye dadka dhahaya dhammaan waxay isticmaalaan kombiyuutar iyo wixii la mid ah. Intaa kali maaha kombiyuutarada wax badan oo xataa ciyaaraha baloonta lagu ciyaarayo waxay isticmaalaan kombiyuutar. Su'aasha 20aad aan ku weydiinayo waa maxay kombiyuutar? Waa maxay kombiyuutar? Jawaabta waxaa leedahay kombiyuutar siyaabo badan oo loogu jawaabaa laakiin buugga lixaadka siduu qoraya ayaan ugu jawaabaynaa. Kombiyuutar waa aalad ku shaqeysa tamarta danabka. Danab maxaa laga wadaa? Korontada. Kombiyuutar waa aalad ku shaqeysa tamarta danabka ama korontada oo awood u leh in ay xogtu aqbasho, shaandheyso, keydiso, isla markaasna soo bandhigto natiijada. Adiga soo gaabso laakiin inta su'aal waafi ah jawaab waafi waa ka. Kombiyuutarku waa aalad ku shaqeysa tamarta danabka korontada oo awood u leh in ay xogtu aqbasho, shaandheyso, keydiso, isla markaana soo bandhigto natiijada. Su'aasha lagu weydiin karo ee ah maadada technology ee su'aasha 21aad waxay leedahay muxuu ka kooban yahay dhismaha kombiyuutarka? Muxuu ka kooban yahay dhismaha kombiyuutarka? Dhismaha kombiyuutar jawaabta waxaa leedahay dhismaha kombiyuutarka wuxuu ka kooban yahay qayb qalab ah oo lagu magacaabo afka qalaadka hardware. Qalabka qalab waxaa la waxa biraha iyo shaashada iyo dhalada iyo mouse
birahan waxyaabaha la taaban karo ee computerka ee gacanta lagu qabsan karo ayaa loo yaqaana hardware iyo qayb barnaamij ah oo lagu magacaabo software afka qalaad qaybta barnaamijka waxyaabaha shaqeynaya gudaha aan gacanta gelin gacanta ku qaban karin iyo wax lamid ah ee ka shaqeysiya computerka tusaale ahaan mobilkaada tusaalankaas iyo qof dibadda jira ayaa waxa uu ku dhahay walaalka ah ama eheladaada kamid ah sawirkaada iyo soo dir whatsapp iyo soo dir nambarkiina waa ka sawirkaadaad u dirtay dibad yaa qaaday marka halkaa geeyey waa software ku shaqeynaya internet sooma waa software wax qaada waayahay iyo codadka iyo waxyaabaha barnaamijyada la duubo video waxaas dhan waa software okay su-aasha lagu weydiin karo waxaa waaye tiri qaar ka mid ah qalabka computerka wax iga sheeg maxaa ka mid ah qalabka computerka qalabkiisa rabaa in aad wax iga sheegtid okay waxaa leedahay waxaa ka mid ah furaha looxa oo afka qalaad lagu dhaho keyboard afka qalaad keyboard ama keyboard ayaa lagu magacaabaa maskaxda computerka ku shaqeeya oo loo yaqaano CPU oo ah Central Processing Unit magac kale way ku sheegaan laakiin kaas caansan hadda Central Processing Unit oo CPU loo yaqaano maskaxda computerka waayahay sidoo kale shaashada ee dhalada wax laga daawanayo ama muuqaalka soo gudbinayso oo afka qalaad lagu dhaho monitor xogkeediye oo loo yaqaano afka qalaad storage device iyo madbacadda oo printerka lagu daawaco muuska gacankii wixii lamid ah way badan yihiin qalabada laakiin intaas qaado adiga ku darso waxa kale aad taqaano ama soo baaro google-ka tag waa maxay qalabka computerka qor waa maxay qaybta barnaamijyada ee software loo yaqaano waxaan kala qaybinay dhismaha computer qayb la yiraahdo hardware iyo qayb la yiraahdo software ayaan kala qaybinay hadda waxaan la weydiiyay waa maxay qaybta barnaamijyada ee software-ka shaqooyinka badan ee computerka uu qabanayo ayaa software-ka ay tahay laakiin qalabka waa iska naqaanaa bari wixii isku xirnaa waa kontooyinka fiilada iyo waxaas qalabka u ahaa waayo qaybta software-ka waa noocyada kala duwan ee barnaamijyada ka shaqeysiya computerka iyo qalabyada ku xiriirsan sida Windows waa barnaamij lagu shubo computerka oo software ah oo ka shaqeysiyo in computerku shaqeeyo oo shaqo fiican u qabto la'aantiisna marka computerka ma shaqeyn karo qaybta software-ka waa noocyo kala duwan ee barnaamijyada ka shaqeysiya computerka ka shaqeysan iyo qalabyada ku xiriirsan qalabyo badan oo ku xiriirsan computerka sida Windows-ka Windows-yadu way kala duwan yihiin marka Windows 7 maarata Windows 8 maarata Windows 10 way badan yihiin Windows-yaasha waxay soo bilaaban jireen Windows Me Windows 97 waxaas la dhahan jiray ilaa Windows 10 hadda way badan yihiin Windows 2020 marayna marka Windows-yo badan ayaa jiro okay maxaa jiro Windows-yo badan ayaa jiro oo loogu talagalay marka in lagu ogaado qofka shaqada uu qaban lahaa waayahay software-ka Windows-ka ka hadlayna marka qaybta software-ka waa noocyada kala duwan ee barnaamijyada ka shaqeysiya computerka iyo qeybaha ku xiriirsan printerka wax la mid madbacadda ka wada qeybo badan ku xiriirsan waayahay su-aasha kale ee 24aad imisa loo qeybiyaa barnaamijyada software-ka maxaa loo qaybin karaa software-ka maadaama ay badan yihiin maxaa loo kala qaybin karaa marka bini'aadan aragto waxaa loo kala qaybinayaa rag iyo dumar iyo caruur sooma imisa loo kala qaybin rag iyo dumar hataa caruurta waxay soo galayaan rag iyo dumar bes ay u kala qaybsamaan imisa loo qaybiyaa barnaamijyada software-ka waxaa loo qaybiyaa laba waaweyn kala yihiin waxaa loo qaybiyaa laba barnaamij oo waaweyn waxaa loo qaybiyaa laba barnaamij oo waaweyn waxayna kala yihiin waxaa loo qaybiyaa laba ku dhahay bes kuma jira meeshaas markaa soo gaabsanaysid imisa loo qaybiyaa barnaamijyada software-ka labo waxayna kala yihiin kow barnaamijyada nidaamka oo afka qalaad lagu dhaho system software qalaad waxaan ku dhahnaa system software oo ah maskaxda computerka
systemka dhan qaybta uu ku shaqeynaysay ayaa loo yaqaanaa system software ayaa loo yaqaanaa. Waa barnaamij xul ah la'aantiisa uuna ku shaqeynaynin. Barnaamijka computer la'aantiisa ku shaqeynaya system software ayaa loo yaqaanaa. Waayahay iyo qayb barnaamijyada oo loo yaqaano application software. Application waxaa aragtaa mobilkaada maalin kasta inaad Play Store-ka ama Google Store aad soo dejisatid maalin walba WhatsApp-ka, ima Viber-ka, Twitter-ka, dhammaan waxaa aragtid ayaa kala soo degtaa oo barnaamij ah application-yada meesha ku jiraan. Marka application software ayaa loo yaqaanaa. Waxyaalo lagu shubto halkan system computer-ka ay ku shaqeeyaan. Linux iyo waxaas kamid ah. Waayahay su'aasha 25 goorma ayuu bilowday hindisidda iyo soo saaridda kombiyuutarka? Su'aalaha waaweyn ee lagu weydiin karo ayaa ka mid tahay. Goorma ayuu bilowday hindisidda iyo soo saaridda kombiyuutar? Kombiyuutar oo la suubiyo goorma la bilaabay, la soo hindisay, la ikhtiraacay? Waxaa leedahay jawaabta qarnigii 20aad bartamihiisii ayuu bilowday hindisaha iyo soo saaridda kombiyuutarka. Qarnigii 20aad bartamihiisii ayuu bilowday hindisaha iyo soo saaridda kombiyuutarka. Su'aasha kale lagu weydiin karo waxaa waaye maxaa loo adeegsaday kombiyuutaradii ugu horreeyay? Waa su'aal. Maanta kombiyuutarada waxyaabo badan oo loo isticmaalaa soo ma? Kombiyuutaradii ugu horreeyay maxaa loo adeegsaday? Sababta baahida keentay in loo adeegsado kombiyuutar oo lasoo saaro horta iyo waxa loo adeegsaday. Intaa marka su'aasha waxay ku dul wareeganaysaa maxaa loo adeegsaday kombiyuutaradii ugu horreeyay? Jawaabta waxaa leedahay kombiyuutaradii ugu horreeyay waxaa loo adeegsan jiray howlaha ciidanka iyo injineernimada. Howlaha ciidanka iyo injineernimada. Engineer waa maqashaa maleynaa. Hebel waa engineer. Okay. Ciidankana waa naqaanaa ilaa hadda kombiyuutar ay isticmaalaan. Kombiyuutaradii ugu horreeyay waxaa loo adeegsan jiray howlaha ciidanka iyo injineernimada. Su'aasha 27 waxay leedahay cabir ahaan halkee ayuu gaaray xajmiga kombiyuutarkii ugu horreeyay? Xajmiga kombiyuutarka ugu horreeyay cabir ahaan halkee ayuu gaaray? Macnaha halkuu ku fadhiyay. Waan garan karnaa soo ma cabirka guri walba wuxuu leeyahay cabir. Shay walba wuxuu leeyahay. Mobilkayga hadda aan wato haddaan miiska saaro halaha uu ku fadhiyo, halaha mobilka miiska uu ka haysto ayaa loo yaqaan xajmiga. Cabir ahaan halkee ayuu gaaray xajmiga kombiyuutarkii ugu horreeyay? Xajmiga kombiyuutarkii ugu horreeyay waxa uu ku fadhiyay qol badkiisu yahay 72 mitir square. 72 mitir square ah ayuu ku fadhiyay. 72 mitir. Halkii mitir waxaa waa hal tilaabo ah qaadid. Waa 72 tilaabo oo dhan walba ah oo qaadid. Balac iyo macnaha dhererbo. Intaas ayuu ku fadhiyay. Kombiyuutar aad u weyn. Waxay dhahi jireen dhalinyarada waagii awowgay kombiyuutarada lugaha uu ku qaraaci jiray. Kombiyuutar saa u weyn aniga waan aragnay. Kombiyuutarka wuxuu leeyahay badhamo ama furayaal la taabto oo alphabetic ABC waxaas ay ku qoran yihiin ama taajo ay ku qoran yihiin. Kombiyuutaradaas marka see loo qaraacayaa marka? Ciyaalka maskaxda intay ka shaqeysiin waxay dhaheen waagii kombiyuutarada awowayaasheen lugaha ay ku qaraaci jireen. Lug aa lagu qaraaca halka xaraf macnaha badhankiisa uu weyn yahay. Darbo sida baloonta oo darbeynaysa xaraf oo darbeynaya. Mool ku jirto wax inay ciyaalka jinni waa. Su'aasha 28aad waxay leedahay maxay ku dadaaleen injineerada kombiyuutarka? Dadka kombiyuutarka shaqeeya injineeryaashka ah maxay ku dadaaleen? Injineerada kombiyuutarada waxa ay ku dadaalayaan in ay horumariyaan dhaqsashaha kombiyuutarka iyo in ay yareeyaan xajmigiisa. Inuu kombiyuutarka si si fudud oo dhaqso ah dhaqsashaha. Waayahay injineerada kombiyuutarada waxa ay ku dadaalayaan in ay horumariyaan dhaqsaha kombiyuutarka uu u shaqeynayo iyo dhaqsaha kombiyuutarka uu shaqeeyo iyo in ay yareeyaan xajmigiisa, miisaankiisa iyo culeyskiisa inay yareeyaan.
waayahay su-aal ayaa nala weydiiyey 29aad waxay leedahay goorma ayaa lasoo saaray kombiyuutarkii ugu horreeyey iyo shirkaddii soo saartay. kii hore muxuu ahaay, maxaa loo adeegsaday kombiyuutarkii ugu horreeyey ee su-aasha ku qaldamin. kombiyuutaradii ugu horreeyey su-aashan 26 maxaa loo adeegsaday kombiyuutaradii ugu horreeyey. su-aasha kale ka horeysa waxaa goorma ayuu bilowday hindisaha kombiyuutarka, in kombiyuutar la hindiso goormuu bilowday iyo maxaa loo adeegsaday. su-aasha hadda 29 waxay leedahay goorma ayaa lasoo saaray kombiyuutarkii ugu horreeyey iyo shirkaddii soo saartay ayaa laga rabaa. waayahay jawaabta waxaa leedahay kombiyuutarkii ugu horreeyey ee qabanaya shaqooyin guud waxa uu ahaa ENIAC oo ENIAC waa shirkad magaceed oo lagu sameeyay Mareykanka kuna saleysan habka 10ka tirsiga sanadka markuu ahaa 1946 ayaa marka kombiyuutarada hadda caanka ah anaga isticmaalno oo shaqooyin kala duwan qabto xilligaa ayaa lasoo saaray. kombiyuutarkii ugu horreeyey ee qabanaya shaqooyin guud waxa uu ahaa kombiyuutarka ENIAC oo lagu sameeyay Mareykanka kuna saleysnaa habka 10ka tirsiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eber habka tirsiinka. waayahay kaas ayaa ugu horreeyey oo howlahan maanta aan qabanayno. sidoo kale haddii su-aasha 2 daraf ayay yeelanaysaa, darafta hartaad ugu jawaabi kartaa. waxaa leedahay kombiyuutarka casriga ah sida adeegsiga elektarooniga ah ee ku shaqeynaya nidaamka dijitaalka ama nambarada waxaa badankooda daahfuray Claude Shannon sanadkii 1937. tiradan ayaa tiradan ka jaraysaa. okay waad kala garanaysaa sooma 1900 way toosan yihiin 46 dambeysay 37 ayaa horeysay. marka ninkaas ayaa dijitaalka soo saaray kombiyuutarada casriga ah laga wado kombiyuutarada casriga ah sida adeegsiga elektarooniga ah ee ku shaqeynaya nidaamka dijitaalka ama nambarada oo kombiyuutarada waxay isticmaalaan nambar oo binary number loo yaqaano 0 iyo 1 waxaas waaye. waxaa badankooda daahfuray oo macnaha banaanka soo dhigay Claude Shannon sanadkii 1937. su-aalaha way badan yihiin marka arday waa mahadsantihiin, halka ayaan ku ekeenayaa. mudane share gareey, wax kale idinkama rabno, lacag mayna weydiisanayno, ilaahay dartiis ayaan markaa idinku deeqaynaa. su-aalaha marka imtixaanka gelaysid iska fiiriya. janaalka aad kala socotaan waa macalin maxamed qaadir cusmaan. ma ogaanin subscribe saartid ama like ay saartid adigoo mudane marwo soo dhaweynayaa sida dulqaadka aad igu dulqaadatay in aan cashir kugu soo gudbiyo ama aad ii dhageysatay. waxaan rajaynayaa inaan ku kulmi doono xiisad la mid ah. waan kuu duceynayaa walaal, ku dadaal su-aalaha iyo jawaabahaas inaad markaa aad fahantid kadibna maskaxdaada ay gasho kadibna aad imtixaanka ku barmoostid. buuggan ha mogaan inaad akhrisid. wabilaahi tawfiiq.